tababar muddo 3 maalmood ee dareeri guddiga nabadeeyowka degmada Walaweyn ayaa way balaah ka gabagabay isla degmadaas kaasaytii oo la baradaya xalinta khilaafaadka way faafaynta warkun degmada Walaweyn ee gobolka Shabeellaha Hoose aan ku daraya Abshir Maxamed Nuur Mandela tababarkun laha gabagabay degmada Walaweyn way baa ka saabsanayay xalinta khilaafaadka oo markaas u dhibgaadayeen guddiga xalinta khilaafaadka degmada Walaweyn yeelata tababarkun oo dareeri muddo 3 maalmood way baa hagaban qaabiyay wasaaradda arrimaha gudaha dawladda Soomaaliya koonfur galbeed Soomaaliya intii tababarkun dareeri way baa la ka baraday sida lan xaliyo khilaafaadka iyo sidii degmada yaan hal lahayti nabadgelyo buuto oo ku dhibgaadayaan bulshada shirkadisan iyo maamulka degmada Walaweyn gabagabada munaasabada tababarkun way baa u qayb galay mas'uuliyiinta degmada Walaweyn waa goradka iyo hanraabta magaalada Walaweyn ku horeyn way baa ku hadalay xukuumad ee mas'uuliyiinta degmada Walaweyn oo ku horeey gudoomiyaha arrimaha bulshada degmada Walaweyn in laga isbaray amni xaaladdeedii kalimad oo yar oo weyn waa qofka bini'aadamka amni la'aan ma seexan karo amni la'aan wax cuni karo amni la'aan ma noolan karo amni la'aan wax dhaqaaqi kara ma laha dadkii barnaamijkaas loo tarbiyeeyey juhdi lagu bixiyay ayaa tihiin waxaan rabnaa insha allah magaalada hadda amnigan hadda ay joogto isla imaan juhdi badan iyo qaayl badan iyo qarqarta badan iyo soo jeed badan ay ku noqoto gobolka Shabeellaha Hoose degmada uga amni badan iyo way maanta Walaweyn waxaan rabnaa wixii kale oo xaafadaha ku jira oo cayayaan oo xaafadaha ku jira oo dadka anaga aan kasay dadkii soo saari lahaa idinku waay shaqo badan la lagu tarbiyay shaqo badan ay sugayso ku soo dhawaada shaqaas ayada ah haddii aad ku aflaxdaan ajar helaysiin ilaahay ajar helaysiin bini'aadam agtiisana waxaad ka helaysiin awaalmarin iyo faalle helaysiin waxa ugu weyn ilaahay ajarkiisa ugu weyn ajar ilaahay isla helaya ugu weyn iyo xalinta khilaafaadka maamulka degmada guud ahaan degmada gobolka ka soo qaybgalayaasha dhammaan guddiga peace committee saaxiibkay Mandela oo kaamirada wax badan ka shaqaysiiyay iyo telefishinka koonfur galbeed oo wax badan soo gudbiya arrimaha horumarka deegaanada intaas kadib maanta waa maalinta ugu dambeysay seminaarkii ama tababarkii u socday guddiga ama peace committee xaafadaha degmada Walaweyn oo ka koobnaa ilaa 14 xaafadood oo loo tababarayay sida ay u shaqayn lahaayeen kolba maanta idin sheegi ma sida u shaqaynayseen waxa laga yaabaa in maanta nooga aqoon badan yihiin maadaama fursad joogto ah sida oo la qiyaas sheegay 3 maalmood waxay ahayd oo subaxii loo soo xaday galabkii isla gaaray waxay u dhigmaysay 10 la qaad isbuuc ka badan ay dhigmaayeen waana idin muuqataa wixii la idin sheegay wax ka badan in maskaxdiina ay soo saarayso maanta aad dhisantihiin sida wasaaradda hore u ballan qaaday oo annagana aan ku adkaynayno waxaan u baahannahay tababarada noocan oo kale in la joogteeyo ay wasaaraddu wax badan ay ku celiso si ay u noqoto dhalinyarada ama guddigana ay u xifdiyaan waxa oo xifdul baatinka la dhaho marka hadduu ilaahay raalli ka noqdo waxaan idin rajaynaa inaad shaqadii la idin tababaray sideedii aad ugu bixi doontaan hadduu ilaahay raalli ka noqdo aad ka shaqayn doontaan marka maanta waa maalinta ugu dambeysay waan ku mahadsanyihiin wasaaradda iyo tiimkii ka wada shaqeeyay hawshan aad ku quruxda badan ee loo qabtay waxaan rajaynaynaa intaan ka badan in loo qaban doono maantana seminaarkaas ama tababarkaas saasuu noogu xiran yahay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu anka dambeyntii way baa meel ku hadalay la taliyaha sare ee wasaaradda arrimaha gudaha Cabdirasaaq oo ka dheeraaday ahmiyad uslahay casharadun meelun ku bi oo lan ka tala galay guddiga xalinta khilaafaadka sidii markaas aan hal lahaayeen khilaafaadka bulshada ku dhaxdiyow sharafay noqday umada gudoomiye ee naga soo qabgashaan ana malaynayaa wixii cashara ah ku saabsan 3 maalin iyo waqtigan isla qaadanay dad aad u fircoon fahansan waxyaalihii la barayna maanta ugu dambeystii maantana noo farxad geliyey inay fahmeen waxaan u malaynayaa dadkaan si mutaqaabnimo ah oo volunteer ah
iyo in kala shaqayn doonaan si xasilooni guud loo gaaro dhammaan nawaaxiga degmada Walaweyn waxaan ognahay degmadan dhibaatooyin fara badan inay ka dhaceen sidaas darteed guddigan waxaan noqon doonaa guddi joogto akhbaaraadka in siin doono waxyaalihii dhacdooyinka hadday noqdaan khilaafyada bulshada gudaheeda marka sidaas darteed fursad ay noo tahay inaad nagala soo gashaan helitaankii xafladan annagana insha Allah tababarada noocan oo kaleeta ah waa sii wadi doonaa si aan u tayayno si ayagana howlahooda ay u fushaan marka gudoomiye soo dhawow si kastaba haato tababarku iyo guddiga xalinta khilaafaadka oo ay iska jiraan haween dhalinyaro iyo odayaalba wayba lanka talagalay sidii markaan xalin lahaayeen khilaafaadka u dhiyow bulshada shaqadiisan ee degmada Walaweyn Abshir Maxamed Nuur Mandela warbaahinta Koonfur Galbeed Walaweyn gobolka Shabeellaha Hoose